بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيد وناكسن كدب مركز كلنا قدوميها قلها أقل كسرة قدومي كحون كواد قلها أقل كسرة يسودوا كلا قدوميها قلها الشعب كا عن قدوميها محكمة السرة قدوميها جوديجا دستور كلا قدوميها جوديجا دبلوماسية إلى الصعود الدستور كا سفير كدلك إنه ولا لها نهاية تركيا عن حبناها لبض الجولة جديدة كلا دوّن أقل كسرة عن قولها وزيرة مرت الشرف تكلم بهذا الصحافة ده يفنانين توانو هاد علنا يو عن هسه دي يو مرتدو دي أدو قيمة بالنيد سلام كدب وحارنتي شرف وين إنه إن عن عاوة كسوق يبقلنا حفلة حيرتان كالفرد قلبات عن برلمان كأما أقل كسرة رنتي هول بدن سوق بتي مددي هذا اللي سوى جوجي inaguna runtii wax weyn bay noo tahay in aan hiigsano haddii alla idin markay fasaxa ka soo noqdaan shaqooyinka ay qaban doonaan in qaybo kamid ah ay noqdaan qaybaha la wada sugayo ummadda Soomaaliyeed ee haddii ay noqon lahayd maqaamka magaalada Muqdisho oo dastuuri ah oo ay ummadda Soomaaliyeed wada sugayso oo ay tahay mid loo baahan yahay in matalaadii dadkan 3 milyan gaarayo matalaadina inay ku helaan aqalka sare oo qiimo agteena ku leh inta kadib waxaan wada ognahay runtii hawsha iyo waxyaabihii faraha badnaa oo hadhowtii ayay inoo sheegi doonaan laakiin waxaan dhammaanteen wada ognahay hawshii la soo qabtay inaysan yarayn oo runtii sanadkii la soo dhaafay sanadka 2017 uu ahaa sanad hawl badan ay ku dheehan tahay gaar ahaan hay'adaha sharci dejinta sidoo kale sanadkan cusub marka hore aan iraahdo waan ilmaamay sanad wanaagsan سنة دمضوا برواقة إن شاء الله تعالى ما دام سنة بالله ويهي وحنا رجينا سنة كان لبضة كل سدية تمكن نقطة سنة تاريخ قوة غير أمد الصومالية ما دام أمد الصومالية أي أمنتها يومو بهيه تاريخ سمين تاريخ ذا سواء تاريخ نبضات تاريخ إسقبالات تاريخ دبوشيسينات يوم قدام بنتي تاريخ قوله أمد الصومالية وده قولستان تاس أكو إيمان كرتو كليا إن دتكو إسقبالان آمنان in meesha loo socdo ummadda Soomaaliyeed ay gaari karto lagu gaari karo had doorashada sida ay sheegtay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka gudoomiye Xaliim Maxamed Ismaaciil Xaliim Yarey sida ay sheegtay ay tahay in la gaaro doorasho qof iyo cod ah ee 2020ka waa sax waa waajib qof walba in laga shaqeeyo ay tahay laakiin tusaalaha ugu wanaagsan ee la qaadan karo ee laga shaqeyn karo waxay tahay isaqbalaadda dadka dhaxdooda ah haddii aan nahay maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose waajibka ugu weyn ee saaran waxay tahay bulshada isaqbalaadeeda iyo sidoo kale ay bulshada noqoto bulsho hore u dhaqaaqdo waxaan hubaa dadka Soomaaliyeed waa dad wada jecel dimuqraadiyadda iyo horumarka dadka Soomaaliyeedna waxay u leeyihiin in codkooda mar walba ay ku kalsoonaadaan oo ay ku gaaraan gudoomiyaha waxaan ka codsanaynaa insha Allah in marka ay noqoto gobolka Banaadir arintiisa annagu waxaan nahay maamul oo loo wada siman yahay ama inclusive administration haday noqon lahayd dhalinyaro haday noqon lahayd haweenka maamulkaas wuxuu diyaar u yahay insha Allah inuu wax walba kala shaqeeyo kuna soo dhaweeyo mar kale iyo mar labaad waxaan leeyahay hambalyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh